السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتك kusoo dhawaada Somali business. anigoo ah Zakariya Maxamed Shooble. maanta waxaa muuqaalkeena waxaan rabaa inaan ii sheego waqti badan aniga waxaan ka hadlaa habka ama dariiqooyinka oo internetka oo lacag ka samayn lahaydeen ama internetka ka shaqeysan lahaydeen ama sida internetka oo lacag ka heli lahaydeen ayaan ii sheegaa. muuqaaladaydan wuxuu ku xisaabsan yahay kaasuu ku xisaabsan yahay businesska internetka sida business u samayn lahayd ama sida internetka u shaqeysan lahayd ama waxaa qabi lahayd internetka lacag u heli lahayd ayaan ka hadlaa. marka waxaa waaye website-daha ka hadlo aaday u tiro badan yihiin, website-daha aaday u badan yihiin. marka website-daha qaarkoodii waxaa waaye adduunka meelaha qaarkood kama shaqeeyo, sida Soomaaliya oo kale ma ka shaqeeyo, Africa iluu ka shaqeynaa laga yaabaa yaa wadamaha qaarkood kama shaqeeyo ama shuruudo oo faro badan ayay leeyihiin, qaanuun faro badan ayay leeyihiin. marka dadka waxaa way galayaan website-ka aniga sheego haddaa fiirisid muuqaalaha oo badan waxaa hoosaan geliyay, hoosu qoran yihiin muuqaalo badan, video badan oo ka hadlaya dariiqooyinka kala duwan oo internetka lacag ka qabsan kartid. dadka way baroweeyaan, markay baroweeyaan ma u shaqeeyo ama waxaa waaye dhibaatay arkaan ama waxaa ka khaldamay ama waxaa u shaqeynin ama caqabaday la kulmaan, markii waxay dhahayaan waa fake, waa scam, ma shaqeeyo beenaanu sheegaysaa iyo waxaasay leeyihiin. marka aniga waxaa waa niyaday kuma jiro inaa been nii sheego, niyaday kuma jiro inaa been nii sheego, niyaday kuma jiro inaa nii qiyaamo, niyaday kuma jiro inaa macluumaad ama information qalad ah inaa nii siiyo. muuqaalkan oo dhammaystiran daawada, maxaa yeelay u dambeyskii waxaan baxsaneynaa qof ayaan baxsaneynaa oo Somali Business Academy kuraayo ayaa baxsaneynaa. marka insha Allah muuqaalkan iyo ku gafin asigoo dhammaystiran daawo. okay, marka waa kaasa. maanta waxaa rabaa inaan ii sheego website cusub. waxaa website-kan aniga horta baaritaan sameeyaa, research sameeyaa. information-kan inaan ii keenin ka hor, information kasto, video kasto inaan sameynin ka hor, aniga waxaan sameeyaa research, baaritaan ayaan sameeyaa. informationka nii soo dhigaayo waa hubsada iluu yahay information sax ah oo fake ahayn, oo scam ahayn ama wax beebeen ahayn iyo waxaas waa hubsadaa horta. okay, markaa hubsado kadib oo informationka uu yahay information sax ah oo ininka ka faa'iidaysan kartiin, oo ka shaqaysan kartiin, oo lacag ka qabsan kartiin, markaa hubsado kadib ayaa muuqaalka video aan sameeyaa ayaa nii soo dhigaa. okay, waa garateen oo maleynaa soo maaha. marka waa kaasa insha allahu tacaala. qaanada haddaa ku cusub tahay, welcome, kusoo dhawaaw. magacayga waa Zakariya Maxamed Shooble. waxaan deganahay wadanka Mareykanka deganahay. marka waa kana qaanadan ulajeedada qaanadan waxaa weeye in aan dhiirigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed sida internetka uga shaqeysan lahaayeen, internetka ka faa'iideysan lahaayeen, internetka business ka bilaabi lahaayeen, freelance oo gali lahaayeen, oo xirfado kala duwan ee bartaan sida internetka uga shaqeysan lahaayeen. marka ulajeedada waa sidaas, inaan nii faa'iideeyo oo waqtigiina ka faa'iideysataan, oo internetka ka shaqeysataan, oo xoriyada iyo freedomka internetka laga shaqeysto in aad heshaan. marka insha allahu tacaala waxaad ku salisaan nabigeena ku saliya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. iyo fadlan hadduu yahay xilliga salaada muuqaalkan jooji, paas ku qabo, orod salaada duko, markaad dukatid kadib soo laabo muuqaalkan sii daawo. okay, marka insha allahu tacaala mida kale ramadaan kariim, ramadaana lagu jira, alxamdulilah, ramadaan kariim insha allahu tacaala. waqtigiina ka faa'iideysta. aniga sheekh ma ihi, yaa lii dhahin sheekh Zakariya, yaa lii dhahin sheekh ma ihi aniga, laakiin waxaan jeclahay aayadda ilaahay qur-aanka ku dhahay
in fuliyo. waxaan jeclahay aayadda qur-aanka ilaahay ku xusay ilaa nii sheego ya ilaahay wuxuu dhahay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سورة الذاريات أي كجرى آيدان إلى وحوليهي ددك كالحسوسية يا قفك دابنادنك وحيس حسوسيان يا وحو في عنيهي qofka mu'minka ayuu u fiican yahay markii wax la xasuusiyo markaan waajibkii waan guday waa ka saaduuya xilliga salaada fadlan orod salaada duko markaa dukatay kadib muuqaalkan kusoo laabo maxaa yeelay wax oo sheeg salaada ka muhiimsan ma jiraan khaasatan xilligan lagu jiro yaa salaada waa muhiim ha ahaado ramadaan ha yuu ahaanee ramadaan salaada waa muhiim laakiin khaasatan xilligan lagu jiro oo soonka ah salaad aad iyo aad uu muhiim u yahay iyo dadka soomaan oo maasha allah ya oo soomaan oo salaada dukanin soonkiina waa bilaash wax kama jiraan soonkiina maxaa yeelay salaada iyo soonka salaada ayaa horeeya haddaad soomaysid oo salaad dukanaynin waxawaaye soonkaaga waxawaaye maalaa yacni weeyaan waa useless waa khasaaro haddaa salaada dukanaynin marka insha allah salaada duko sooma okay waa kaasa insha allahu tacaala websiteka maanta ka hadlayna waxa waaye horta midda koowaad badanaa internetka waa ku jirtiin ininka facebook waa ku jirtiin instagram youtube waxaas waa ku jirtiin iyo haddaa micnaa muuqaal fiican muuqaalkan oo kale oo micnaa share waa ku samaysiina maleyna marka muuqaalka horta share ku sameeya ya asxaabta ay dadka garanaysin gaarsiiya si ayagana uga faa'iidaystaan marka waxa aniga macnaa video badan share waa sameynaa ama marka wax akhrinayno website ama article ama waxaas share waa sameynaa marka ka waran haddaa share samaysid oo adiga lacag lagu siinayo ka waran share kasto aad samaysid ama video kasto qof kale markaa la qaybsanaysa oo share ku sameynaysid oo adiga lacag lagu siinayo ka waran waa kan waa ra'y fiican soo ma ahan kan waa ra'y fiican way jiraan sheekadan ya waa wax jirto marka maanta waxaan ka hadlaynaa website ka hadlaynaa oo aad gali kartid oo account ka furi kartid oo website-kan waqti kasto macnaa video aad fiirsanaysid qof kale la qaybsanaysid qof kale la share gareynaysid markay fiirsadaan oo ku dhuftaan linkiga oo adiga lacag lagu siinayo waqti kasto linkiga markay ku dhuftaan adiga lacag ka helaysaa marka research aan sameey baaritaan aan sameey informationka waa information sax ah haddaa garanaysid waa wanaag alxamdulillah waa khayr haddaa garanaynin marka ka faa'iidayso marka waa kaasaa insha allahu tacaala si caadada noo ah computerka galaynaa marka website-kan inaa nii tusaaro waa si ininka uga faa'iidaysan laheedeen accounta ka furanaysaa account markaa ka furatid kadib waxa waaye linkay ku siinayaan linkiga kasto linkigaas markaa dadka la qaybsatid yaa lacag ayay ku siinayaan marka waa kaasaa sida caadada noo ah computerka ayaan galaynaa waa kana maasha allah computerka ayaa ku jirnaa marka ilaa bilaawin ka hor waxaad ku salisaan nabigeena ku saliya allahuma salli wasallim calaa nabiyina muxamed website-ka waa kana waxaa la dhahaa website-ka rosefly ayaa la dhahaa waxawaaye micnaa waxawaaye linkiga adiga micnaa rabtid videoha rabtid dadka kale la sheergalaysay la qaybsatid intaa gelinaysaa for example videohayni oo kale haddaa aadno youtube-ka aadanaa marka waa kana kan videohayga weeyaan oo saa aad u jeediin marka haddaa rabtid videohan oo kale for example ilaa dadka kale la qaybsatid facebook iyo meelahaas dadka kale la qaybsatid right click ayaa leedahay copy link url aad dhahi kartaa ama halkan share ayaa dhahi kartaa marka copy link ayaa dhahi kartaa okay kadib website-kana imaanaysaa rosefly ayaa imaanaysaa linkiga copy karaysay inta ku leedahay paste ayaa leedahay okay paste markii dhahdeed waxaad ku dhufanaysaa
go ayaa ku dhufanaysaa. go markaa ku dhufatid waxay ku siinayaan linkigan ay ku siinayaan linkigan markay ku siiyaan kadib linkigan ayaa asxaabtaada ee dadkaa rabtid ama WhatsApp ha noqdo, Facebook ha noqdo, text message ha noqdo ayaa la qaybsanaysaa. waqti kasta markay ku dhuftaan adiga lacag ayaa ku socdo. marka intaa waxaan fiirinaynaa publishers rate. wadamahana uga lacag badan macnaa qofka joogo wadanka oo Iceland oo kale haduu linkiga ku dhufto ya CPM waxaa la dhahaa 1000 oo views, macnaa 1000 jeer markii la daawado muuqaalkaas 1000 jeer waxaa lagu siinayaa $25 ayaa lagu siinayaa. CPM ayaa la dhahaa. marka wadamahana ugu lacag badan waa ujeediin Iceland, Greenland, Swaziland, Dominica, United States ugu lacag badan wadamahan. soo ma jeedid listiga wuu socdaa waa kana. marka website-ka markaa imaadid waxaad sameynaysaa waa kana, halkaana ku dhufanaysaa. waxaad leedahay sign up ayaa leedahay. sign up markaa dhahdid account ayaa ka furanaysaa. username ayaa gelinaysaa, emailka ayaa gelinaysaa, password ayaa gelinaysaa. halkaana ku dhufanaysaa captcha ayaa ku dhufanaya. agreement ayaa leedahay. captcha markaa ku dhufatid wuxuu leeyahay crosswalks meesha lagu socdo taabo waa taabanaysaa. marka verify ayaa leedahay. kadib markaa buuxisid waxaa ku dhufanaysaa register ayaa ku dhufanaysaa. waxaa kana register markaa ku dhufatid dashboardigaana galaysaa. lacagta heshay dhan waa kana halkan ku qoran yahay. lacagta dhan intuu kaa soo baxaya lacagta heshay oo dhan intay ku qoran yihiin waa kuwana inta ayay ku qoran yihiin lacagta heshay oo dhan. okay markaa lacag badan samaysid, lacag badan markaa heshay kadib waxaa leedahay halkaana ku dhufanaya withdraw aa leedahay. halkaana ku dhufanaysaa withdraw aa ku dhufanaysaa. wuxuu ku weydiinayaa are you sure okay aa leedahay. marka kadib waxaa imaanaysaa settings aa imaanaysaa. waxaa ku dhufanaysaa profile informationkaaga ayaa buuxinaysaa. lacagta waxay kugu sii karaan micnaha haddaa leedahay paypal ay kugu shubayaan. paypal haddaa leedahay way kugu shubi karaan, ama paytim way kugu shubayaan, ama paytm way kugu shubayaan. paypal ay kugu shubayaan lacagta haddaa rabtid. waxay kugu shubayaan skrill, payeer, bangiga ayay kugu shubayaan. saa jeceshahay lacagta ayay kugu shubayaan. marka informationka dhan halkaan ayaa gelinaysaa, magaca informationka paypal ama skrill ama bangiga ayaa gelinaysaa. kadib waxaa leedahay submit ayaa leedahay. marka waa kaasaa akhyaata maasha allah. maanta waxaan ka hadalnay website-ka la dhaho rosefly.com. waa link shortener lacag ayaa ku helaysaa. marka waa kaasaa maasha allah. waxa waaye hadduu ku shaqeynin iska baroowe iska tijaabi. hadduu ku shaqeynin dhibaato waxaas hadaa la kulantid nala soo xiriir. waa isku dayana inaa ku caawino Facebook ama Instagram nala soo xiriir. marmar qaarkood waxaa waaye fariinta iyo masajadaha ayaa naga soo bato. masajadaha markay soo bataan waxaa waaye micnaha waxaa waaye maalmo kadib 2 maalin 3 maalin 4 maalin kadib aa laga yaabaa ilaa kuu soo jawaabno. laakiin waa isku dayanaa inaan insha allah oo ku caawino. marka waa kaas insha allah. qaanadan muuqaalkan like saara, qaanadan subscribe ku dhufta, commentigiina hoos ku qora insha allahu tacaala. marka insha allah muuqaalkan ayaa hal qofood ka baxsanaynaa, hal comment ayaa ka baxsanaynaa insha allahu tacaala. marka commentigan qofkii ku raayo nala soo xiriir. waxaa ku siinaynaa Somali Business Academy ayaa ku siinaynaa. Somali Business Academy waxa waaye waa course oo ku barayo micnaha habka internetka ka shaqeysan lahayd oo businesska bilaabi lahayd iyo habka micnaha dariiqoonka ugu fiican oo internetka oo lacag ka qabi lahayd ayuu ku barayaa. waa course oo dhammaystiran weeyaan. marka insha allah linkigaana qaadaynaa. commentigan oo dhan halkan ku qoran ayaa hal qofood ka baxsanaynaa. marka website-kana imaanaynaa halkan oo hal comment ka baxsanaya baqtaa nasiib ahaan linkiga gelinaynaa.
kadib insha allah bismillah hal qofood ayaa ka baxsanaynaa. maasha allah waxaa ku raayay commentigan ama baktaanasiibkan waxaa ku raayay Khalid Ismail ayaa ku raayay. Khalid Ismail hambalyo, congratulations. waa kana Khalid Ismail, waa kana Khalid Ismail hada ku raaysa maasha allah. hadaa muuqaalkan daawanayso nala soo xiriir Instagram ama Facebook nala soo xiriir insha allahu tacaala. waxaa ku qoraynaa Somali Business Academy ayaa ku qoraynaa Khalid Ismail. marka insha allah waa kaasa muuqaalkan waa noo dhamaatay. khayr badan ayaan rajeynayaa insha allahu tacaala anigoo ah Zakariya Mohamed Shoble. waqti kale ayaa is arki doona insha allah. muuqaalada halka meelahan ku dhigan ku dhufta yaa oo ka faa'iideysta. commentigiina hoos ku qora si aad ugu raysaan Somali Business Academy. asalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته. وقت كستو حانا جعلها لاني حسوسيو قصلك بتصو.